bal maanta iyo ciyaarihii England weli ciyaaruhu si fiican bay u soconayeen Ingiriiska kalena waa la ciyaarayo maantana Chelsea ayaa mar kale soo laaban doonta wali waa la isku dhagan yahay inna xalina Liverpool yaa nimankii xalay waa lagu dhagay shaqo marabta sanadka Liverpool horta shaqo diyaar uma ahan horta dadku wada galab inay Liverpool ka roon tahay micnuhu mid waa jirtaa Liverpool xalay baraajo waa la geliyay nimanku sanadkan cimaamad ay leeyihiin horta malaha waa galab niman West Brom kor ku faya waa ciyaar markii ugu horeysay oo ay gurigooda ku badi waayaan wayaan xilli ciyaareedka kan ciyaaraha Premier League Anfield la sheegay ayaa inta West Brom tagtay bay baraajo kula soo galeen kuwa kan marka ciidu sidii hore ma ahan Liverpool sheedi ma ahan balse dadku wada galab waa laga yaabaa Liverpool inay kuwa kala karoon tahay mooyaane horta galab waa la wada yahay balse waxa u muuqata iyagu haba la wada galab wadooyeen galab hala wada ahaadee xoogaa ayaa kuwa karooyin u muuqdaan Liverpool xalay waxa lagu celiyay barbaro taas waxay ka dhigan tahay horyaalkan sanadkan waa laga yaaban yahay horyaalka kanu sanadkan waa nawaalayaayo runtiyo waa sababta anigu ilaa hadda indhahan ugu fiirsan leeyahay oo aan meel cimada ugu tuurin waa laga yaabaa inaan anigu maalin kasta mid amaano oo aan Liverpool amaano laakiin still wali anigu ma qabo horyaalkan ayaa dhinac qaadi kara wali maskaxdeeda kama soo goyn maxay waxaan isleeyahay inuu maradu kaaga dhicin meesha sanadkan arladu waa qasan tahay inkastoo Liverpool markaas dadku istiraadaan kuwan baa ugu khatar badan xitaa wali aan isleeyahay laakiin wali hadday horyaalka kan ma ahan horyaal u sahlan ciidatan oo ay ku raaxaysan karaan shalay goolka iyaga ayaa horeeyay runtii waxaana Liverpool goolka u bilaabay ciyaartooyga lagu magacaabo waa ninka qatarta badan Sadio Mane waxaana caawiyay Joel Matip waxaana Sadio Mane sida ku bareejay rekoorkii Luis Suarez goolashu Liverpool Premier League ugu dhaliyay in lamid ayuu ninkan ugu dhaliyay shalayo Rice ayaa hogaankii qabatay yaanu ninka kan waa ka jajaban tahay runtii oo goolal badan waana laga hayn laakiin shalay mar kale ayuu dhaliyay Liverpool hogaanku siiyay balse Liverpool daqiiqadii 82 ciyaarta West Brom waxay tiri maxaad Man City ku eedeysaan oo u leedahay ma West Brom bisba gurigeena Brazil kula gashay hatta Anfield bay Liverpool ku joojiyeen yaa wati mataqana kooxdan Big Sam Samuel Dairis baa watayo waa tababarihii 2017 inta uu Liverpool Anfield ugu tagay ku soo garaacay buu ahaa shalayna intuu halka ugu tagay ayuu baraajo ka soo qaatay Liverpool waxa uu loo hayaa Sam isla Sami ayaana ka bareejeeyo 1-1 Sami Echei ayaa gool ku dhaliyay runtii gool bay galeen hatta waxaan arkay xalay Jose Mourinho oo isaguna galaya barbara gool laakiin bilowgii ciyaarta Tottenham waxay dhalisay gool fantastiga ciyaartooyga lagu magacaabo Tungal Ndombele ayaa darbad xoogan uu banaanka ka gamay wuxuu dhaafiyay goolku ku jiray goolhaya Patricio oo u qabta goolka Wolves Spurs baa hogaamisay Jose daqiiqadii koowaadba waa qusurgay ruuxisri yes عوض بدنيسا لكن وحي قال لك عوضك دونتا فحي حيث فرصتي ugu horeysay kuwa ka helay laakiin mar dambe oo daqiiqadii 86 ayaa ciyaartoyga Roman Yasais uu ka bareejay ciyaartu ka dhigay gool markaabay Mourinho uu laba qarxay oo uu odagu carooday oo kooxdiisu baryahan ay awood leedahay inay guuleysto gabi ahaanba marka xalayna Spurs waa lagu dhagayo wala yaabay sanadkan amara socdo kholiyaha xalay waa lagu wada dhagayo horta yaa todobaadkan u badiyay Manchester waa lagu dhagay Chelsea waa tii laga badiyay sidoo kale Premier League waa tii todobaadka kan iyana Man City waa badisay Liverpool waa lagu dhagay Tottenham waa lagu dhagay todobaadku Sheikh Mansour iyo Arsenal baa qoslaya todobaadkan kuwa horeeyana hunguri waa haya isleeyayna City baa ka badisay laakiin guud ahaan lixda sare waxa uu ka badisay kooxda Arsenal oo garaacday nimanka Chelsea runtii caawana Chelsea mar kale bay soo laabanayaan Premier League waxaanay la ciyaareen Aston Villa waxa leedahay Chelsea oo miyaanu shalay ciyaarin maxay yeelay Bruno waa la iska daba ciyaaraya ayaantan waxa lagu jira waxa loo garanayo Boxing Day waa maalmaha imtixaanka ay maraan ciyaartooyga Ingiriiska ka ciyaara iyo kooxuhu maadaama ay aad u daalayaan oo maalmo isku daba xiga loo ciyaarayo waa nooca ciyaar Soomaaliyeedka markaad galabtu ciyaarto biri wad ciyaaraysaa maalinta ku xigtana wad ciyaaraysaa Chelsea waxay ciyaar sabti maantana way ciyaarayaan City waxay ciyaar sabti maantana way ciyaarayaan Frank Lampard waa uu qeyliyay markuu arkay kooxdiisu 48 saacadood laba ciyaar ku ciyaaraysa haddaba caawa Chelsea waqti hore bay waxay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Aston Villa
sideedii barka baad la ciyaaraysa Aston Villa markaad tiraahdo laakiin Aston Villa la ciyaaraysa markaan ku dhaw tiraahdo aba Aston Villa xabada yaa walla dad Aston Villa ka cabsanaysa shaqo martay baax iska bax yaa nin Aston Villa ka cabsanayo horyaal ma rabe yaa gurigiisa iska jiifo hay waxaad ku hadlaysaa maxay tahay markaan idin Aston Villa dad markaan idhaahdo Chelsea vs Aston Villa markaan ku jijiido warka hadaad naxdid tira xabada ma Aston Villa nagu dhagan nin horyaal raba Aston Villa ma ka cabsado yahu caawa blue Aston Villa bay la ciyaaraysaa waxaana ciyaar soo gali doontaa 8 iyo barka waxa lagu ciyaarayaa Stamford Bridge baa lagu ciyaarayaa runtiyo haddaba Frank Lampard runtii aad buu maalmood uga carooday wuxuu yiri waxaanu luminay fursad aan booska hore ku tagi karno runtii Hudson Odoi ayaa runtii maanta uu tababaru inuu fursad siiyo la rajeynaya Ziyech xataa maanta waxaa la filayay inuu ciyaaraha ku soo laabto maadaama bariyaan uu dhaawacnaa Timo Werner ayaa wali inkaaro ka haysta dhanka goolasha 10 ciyaarood oo uu Chelsea u ciyaaray la soo dhaafay wax gool uma dhalin waa abaartiis ugu weyneed muddo 4 sano ka hor bay ahayd yani 4 sano ka hor yaa وأفر سنة كدب وأبارت سجوين نيكا كان إن طبعا عيارات نيكا كان أنا وح جول لارين نيكا هو اللي جاي بينه يو جول لان باوريريس ولو بلو أيام بديس طبعا عيارات كوي تونك عيار رسولة فيستان فيلا إلى عيارين لحد عيار حتى قدام بي حرب يقول بدني كحدة معنو تشيلسي كوان ويكب بدن أوجيهن أو يقرعان ميدك الله صعود تشيلسي أيا سدح جير لقبدي أفرت عيار رسولة في بريمير ليجا أو أي متخانة يعني عيارين يعني تشيلسي سدح جير بقى لقبل أفرت عيار وقدام بيجي كذي مركي أمبيتنا هايين تمن تدبر عيار لصورنا فهذا جبت اللي قلنا بريحان وليبا لمن كان ليرا هذا تشيلسي ويل كو عيار أبراهام أيا دخل سديت نشرات جول كذا اللي بوكسن ليجي كحضة أرسنال وهو شوت ugu horeeya target ay ciyaarta sameeyay Chelsea macnuhu waxa leeyahay wax isku dayo badan Chelsea maanu sameyn maalin weyd targetkii uu ninka helay Abraham uu dhalay ayaa ahaa targetkeeda kaliya habeenka ay sameeyeen waxaan uu ahaa goolkii 12aad uu dhalinay ninka Abraham tani xagaagii la soo dhaafay waa ninka Chelsea ugu goolasho badan mid kale ugu Jorginho ayaa laga qabtay 3 rigoore oo kamid ah 6 rigoore uu kooxda u tuuray marka runtii bariyahan Jorginho waxa leeyahay qaab rigoorahan iska bedel waxaan lugta kor u taagaysa maxay tahay maalin kasta waraadi lugtaago lama iska taagnaanaysa bal riwariya lugtaan kor u taagaysa maxay tahay Jorginho waxa laga badbaadiyay 3 kamid ah 6 rigoore uu tuuray halka markii hore uu dhalinay 8 rigoore ee Chelsea ugu hore uu dhalinay ka warne haddana 6 rigoore uu tuuray 3 kamid ba laga qabanaya laga badbaadinaya macnaheedu Bruno waa la isla bartay waxa leeyahay ciyaarta ma jirto marka caawa aan aragno bilow saacadu markay tahay 8 iyo barka waxay la yimaadaan hada caawa badi weysaan nimayo shaqo marabtiine yaa horyaalan shaqo ku leenahay haydiin aniga horyaalan rabaale anu haydiin hadii aad caaw ismaaciil garaaci weys shaqo marabtid niyo laakiin sanadkan dadku wax lagu eedo malaha nimankii dhamaa weynaa Liverpool Fulham barajal galay aan yaa maalin City ayaan la yaa West Brom barajal galayso hal waxaan arkay Anfield baraja ay ku galayso West Brom niyo amara soo sanadkan yaa idin lama yaabi doon haddaan arkaa tamida عيارتو قوادك سعاوة وإيفرتون يو كوحدة مانشستر سيتي وحاني عيارت سو قلي دون تعاوة كو يتمنك هابيني عاوة هودسنبرغ بالغو عيارة يا إيفرتون بريان هو كعصنتاي إيفرتون تان كحالينو وحي جوگتا متقانا وإيفرتون وحي جوگتا بوسكا لوادي بريمير ليغا سيتينا وحي جوغان بوسكا لحاد واو waxaad wiliga soo aragto markay Everton iyo Man City ciyaarayaan oo Man City ay sareyso hadda arag maanta Everton baa booska ku jirta yaa halka Man City ay ku jirto booska lixaad runtii Everton waxaa diyaar oo la ciyaartooy ku wajeen maalmood kooxda Sheffield Richarlison ayaa wali xaaladiisa la fiirin doona inkastoo maqnaan karo James iyo Digne iyo Delph dhamaantood waa maqnaanayaan wastoo cumadaanta marka kaay laakiin Everton balay kaman maad iska jireen haysteen dad badan baa ka maqan kuwan caawa jilcayn nimanka Everton baa leeyahay المكوين بلاي ما كان ماذا بلاي بوجهه كله بلوبا مرولبا هذا بقى سيتي وحكي مقنان كرايا تشيسوس إيا كيل والكر ما دام أي كوفيد 19 لقى هاي أكاي جودوان أي حالك سلفيري دونا ما دام اللي وحير يسوق قارين أوع هذا والله صو إيفرتون أي لقى بدي شنتي عيار لصودا في من ستة عيارين سدوك كله أجو يا عيار توجا لقوا مقعبو دومينيك كارفيد لوين أي كقول درسنا يلو جول عليه شن كميدا شن عيارات جول ما نقول دالي كدي مركي 14 جول ودالي 16 كيس عيار ugu horeeyay uu kooxda u ciyaaray hadda waxa lagu leeyahay ninka kan shan ciyaarood wax gool ma dhalin anugii waa ka jaban tahay Manchester City ayaana ambiitina 10 ciyaarood tartamada oo dhan waxaanay badiyeen 7 ciyaarood waxaanay bareejo galeen 3 jeer sidoo kale ogow yaa nimanka la yiraahdo City ayaa
waxar markaan waxay doonayaan inay markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan 3 ciyaarood ku xigta ay guuleystaan maalin dhaweed kulka minuut la ciyaareen waxa la mataqaana waxa la lahaayay Man City waxay u socotaa caawa kulkii saddexaad xiriir inay badiso kadib Man United baa ku dhigtay haddana markale ay soo badiyaan caawa waxa Leicester waxay raadinaysaa wali in markii ugu horeysay 3 ciyaar isku xiga Premier League ay adkaadaan markii ugu horeysay xilli ciyaareedka kan Raheem Sterling ayaana 96 gool dhaliyay caawiyayna 54 intuu kooxdan joogo Guardiola waxa uu kooxdan u siiyay 100 gool waa maxaad u leedahay marka tababaraha Guardiola waa nacnaya Sterling buu wataa maalin kasta leedin وارما نينكا بقولي كوتو جول سيين ونينكا غوارديولا سي جولش ugu badan intuu غوارديولا kooxda yimaaday hatta Aguero ka fiicna weeyaan Raheem dhacdhacow dhibtiisu wuxuu iska taagay inuu iska dhacdhaco oo gool qasaariyo mooyaane waa iska rooyay Raheem waa sababta Ronaldo ama Messi Guardiola u yahay midda kalena Aguero ayaa ku guuldareysay inuu gool dhaliyo 10kii ciyaarood la soo dhaafay ee Premier League labada ciyaarood baa jirta Chelsea waa 8 barka kuwana waa 12 habeenimo waa ka caawi Ingiriiska oo lagu faystay doonaayo waa la ciyaarayaa ogow waa Boxing Day hayaabin shalay baanu ciyaarnayo waar maxaanu maanta u ciyaarina hadhihin hatta ogow habeen dambe Arsenal baa ciyaaraysa hatta United Liverpool xal ciyaarta qudheedu miyaa loo ciimadaya no habeen ku xigay inuu ciyaari doontaa waa Boxing Day